Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa Wantage Media. Waxaan maanta idin soo gudbin doonaa cashir ku saabsan sida loo arko YouTube channel ID-gaaga adigoo isticmaalaya telephone mobile-kaaga. Wayna kuu fududahay inaad aragto. Ugu horreyn furo Chrome Store-kaaga, kadibna gal saddexdaas button oo option-ka ah. kadib waxa ku soo baxaysa sidaan, kadibna ka dooro desktop site. wuxuu kuu noqonayaa sida desktop site-ka oo computer-ka camal ayuu kuu noqonaa. YouTube-ka ka bacdi sii gal, kadibna waa kana waan dhex joognaa YouTube-keena. maanta cashirkeennii oo ku saabsanay sida loo arko channel ID-ga waxaan ku baran doonaa halkan. waxaad ugu horreyn galaysaa marka ugu horeysa meesha profile-kaaga oo loogadaada ay kasoo muuqanayso. meesha ayaad dooranaysaa. hadda ayaan dooranaynaa. kadib waxaan ka dooranaynaa zoom aan kusoo leeyahay xoogaa yar. kadib waxaan ka dooranaynaa meesha setting-ka. haddana zoom aan kusoo leeyahay. kadib waxaan dooranaynaa meesha ay ku qoran tahay qoraalka ugu hooseeyo advanced setting. waad arki kartaa hadda marka channel ID-gaaga iyo user ID-gaaga labadaba waa kuwaas ayuu meesha kaaga muuqda. kadib waxaad tig saarataa haddaysan tig kuu saarnayn afartaas tig oo meesha uga jeedid. add video to public playlist-ga tig saaro, like a video-na tig saaro, save a playlist-ga tig saaro, subscribe to a channel-na tig saaro. wuxuu kale meeshaan laga delete gareeyaa channel-ka ruuxiisna meeshaan laga delete gareeyaa. haddii channel-kaaga oo channel fashilmay uu yahay meesha ka delete gareyn kartaa. haddana dib kugu soo celiyo channel ID-gana waa kaasa meesha ayaad uga jeedaa. haddaad channelkeena ku cusub tahay subscribe dheh, like-tana ha naga hilmaamin. Drop it.